السلام عليكم كسر دواء حرمت هذا بكان داخل ومساكين كي دكتور شريف عدق وكوسو جبنا يا معلومات كله سانكو وحبين كتالا ميل آد ونقول سيدو كلا وحبين له حديدات وفر بدن أوديجا وأنا سببتها مركز جوك وجهك كجرا على خوفك وديك كصدات waxaan kaga hadli doonaa muuqaalkan sangororka ama waxa lagu magacaabo epitaxis waxa sababa iyo sida lagu xalin karo sangororka inta ugu badan waxa keenta jug ku dhacda qofka wajigiisa ama sanka taas oo xididada dhiigga ee aadka u faraha badan ee sanka ku yaala oo dhaawac gaaro markaasna dhiigga uu kaga soo daato sidoo kale waxa keena sangororka ama lagu arkaa dadka isticmaala dawooyinka aspirinka iyo ibuprofenka iyo sidoo kale dawooyinka lagu la dagaalamo xinjirta ee la siiyo dadka ciladaha xinjirta xirta xididada dhiigga qaba ee lagu magacaabo warfaanka iyo waxyaabahaas kuwaas ayagana waa lagu arkaa oo badana waa dadka aadka uga soo muuqdo sangororka sidoo kale waxa lagu arki karaa dadka qaba infectionska qaarkiis waxa ugu fudud ee lagu arko waa dadka qaba malaariyada oo dadka qaar ee malaariyada qaba calaamadaha ugu horeeya ee lagu arki karo waxay noqon karaan epitaxis ama dhiig ka soo daata sanka sidoo kale waxa keeni kara qalal ku yimaada mukosaha ama xuubka dahaara gudaha sanka oo aad u qalala isla markaana dilaac keena ayaa keeni karta marka qaar in sanka uu dhiig ka soo daato sidoo kale waxa keeni kara waxyaabaha la xiriira allergic reactionska ama samboorka iyo waxyaabaha la midka ah iyo qofka oo hindhiso fara badan leh waxaa la gudboon qofka isku arka epitaxiska ama sangororka ugu horeyn waxaa muhiim ah qofku in uusan madaxiisa gadaal u jaleecin ama uusan jirkiisa la simin si dhiiggaasi uusan dib ugu noqon xubnihiisa gudaha waxaa muhiim ah qofku wajigiisa inuu hore soo jaleeciyo si dhiiggaasi oo hore ugu soo baxo sidoo kale waxaa muhiim ah compression ama cadaadis qofku inuu saaro oo uu dhiiggaasi cadaadiyo duleelada sanka afkana uu ka neefsado sidoo kale haddii uu heli karo qofku waxaa loo isticmaalaa cream lagu magacaabo gel foam cream for epitaxis ama bleeding protection oo ah in looga hortago dhiigga sanka ka imaanaya sidoo kale waxaa loo isticmaalaa goos la geliyo duleelada sanka ama faashada wax lagu dhayo nooc loogu talagalay oo sanka la geliyo isla markaana la mariyo dawooyin loogu talagalay inay vasoconstriction ama xididada inay xiraan oo kale si dhiiggaasi uu u yiraahdo meesha ka imaanaya waqti kadib haddii cadaadiskaas lagu hayo dhowr daqiiqo kadib qofku waa uu ka wanaagsanaada ama dhiiggaasi total waa uu joogsadaa sidoo kale waxa xinjir xirtaa duleelkii uu dhiiggu ka soo baxayay xididkii dhaawac uu gaaray sidaana qofka uu kaga bogsoon karaa waa mahadsantiin